kulanti wacan saaxiibayaal meel kastoo aad daafaha caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada macluumaad ku saabsan wadanka Japan oo aan ku soo qaadan doono maanta. ugu horeyn Japaneeska waxa ay Japan u yaqaanaan Nihon ama Nippon oo macna ahaan ay la mid tahay asalka qoraxda. Japan waxay dhacdaa qaaradda Asia waana qaran ka kooban jasiirado ku hareeraysan bad iyadoo ay Japan dhacdo bari waxaana galbeed ka xiga badweynta Pacific Ocean yiraahdo. wadankan Japan waxa uu ka kooban yahay in ka badan 6852 jasiiradood. buurta ugu dheer Japan waxa la yiraahdaa Fuji waxaana dhererkeedu la eg tahay 3776 mitir oo dhiganta 12388 bishii July sanadkii 2012 warbixin la soo saaray waxaa la sheegay in Japan ay ku nool yihiin in ka badan 127,368,088 ruux taas oo ka dhigaysa 10ka dal dadkooda ugu tirada badan caalamka in uu Japan uu ku jiro. Tokyo waa magaalada caasimadda ah ee Japan waana magaalada ugu weyn ee wadankan. sidoo kale magaalooyinka ugu waaweyn wadanka Japan waxaa ka mid ah Osaka, Nagoya, Sapporo iyo magaalooyin kale. Japaneeska waxa luqadooda rasmiga ay tahay Japan. wadanka Japan waxa marar kala duwan ka dhacay volcano, dhul gariir iyo musiibooyin kale oo dabiici ah taas oo dadka Japaneeska ah ay cashiro iyo khibrad ay ka qaateen. sanadkii 2011 dhul gariir ka dhacay wadanka Japan waxa cabirkiisa lagu sheegay 9.0 cabirka dhulgariirada ee la yiraahdo magnitude taas oo ka dhigtay in wadanka Japan uu ka digtoonaado dhulgariirada dabiiciga ah ee meelo kamid ah wadankaas xilliyo kala duwan ku dhuftay. wadanka qayb kamid ah waxa uu yahay buuro iyo kaymo hawd ah taas oo ka hinta in meelaha qaar dadku aysan degin buuran ay ka samaysan laakiin farsamooyin kale ay u adeegsadaan. dadka Japaneeska ah waxay wadankan ku nool yihiin kumanaan sano. waxyaabaha wadankan caanka ka ah waxaa ka mid ah ciyaarta habka militariga loo dheelay ee samurai la yiraahdo taas oo dhowr qarni wadankan laga dheelayay. ciyaartaas oo si xirfadaysan loo dheelo isla markaana loo adeegsado oo ah hubka seefta la yiraahdo. wadankan Japan waxyaabaha kale ee rasmiga ah ee caanka ah waxaa ka mid ah in wadankan uu hawada u saaro ice train taas oo saameyn ku yeelanaysa cimilada wadanka Japan iyo guud ahaan cimilada caalamka. Japan waa mid ka mid ah wadamada ugu wax soo saarka badan ee dhinaca warshadaha tiknoolajiyada isaga oo horumar ka gaaray soo saarka matoorada baabuurta elektarooniga iyo mashiinada kale ee casriga ah. Japan waa mid ka mid ah wadamada hogaaminaya soo saarka agabka la yiraahdo robotka taas oo caan ku yahay wadankan. waxa uu soo saaray robotyo sida bini'aadanka kale u shaqeynaya oo uu ka mid yahay robotka la yiraahdo Azimo. wadankan Japan shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca wax soo saarka ee caalamka oo dhan laga yaqaano waxaa ka mid ah Toyota, shirkadda la yiraahdo, shirkadda Honda, shirkadda Sony, shirkadda Nintendo, shirkadda Canon iyo shirkadda Panasonic, shirkadda Toshiba iyo shirkadda Sharp la yiraahdo ama Sharp. Japaneeska waxay kale caan ku yihiin marka dunida la joogo karinta cunnada. qaaradda Asia meelo kamid ah cunnooyinka Japaneeska ah ee caanka ah waxaa ka mid ah sushi, sashimi iyo tempura. waxaana kuukiyada ugu wanaagsan ee qaaradda Asia ay ka yimaadaan wadankan Japan. Japan marka dadku ay joogaan waxa ay isticmaalaan ciyaaro hidiyo dhaqan ah oo sida loo ciyaaro militariga oo kale. waxaa ka mid ah ciyaarta karatega la yiraahdo, ciyaarta judo la yiraahdo, ciyaarta sumo la yiraahdo iyo ciyaarta kale ee ninjutsu la yiraahdo, ciyaarta kale ee kendo la yiraahdo iyo ciyaarta kale ee la yiraahdo jujutsu. waxaa kaloo jira ciyaaro kale oo caanka ah guud ahaan wadankaasi Japan iyo qaaradda Asia. ciyaarta qaranka ee Japan waxaa la yiraahdaa sumo. waxaa kale oo jirta ciyaar caan ah oo la yiraahdo baseball taas oo sidoo kale laga dheelo guud ahaan caalamkan. Japan
waxa ay martigelisay Summer Olympic Gameski 1964 oo ay ka dhacday magaalada Tokyo. waxaa kale oo ay martigelisay ciyaarihii Winter Olympic Gameski sanadihii 1972 iyo 1998 oo ay ku kala martigelisay magaalooyinka Sapporo iyo Nagano. waxaa kale oo ay martigelinaysaa ciyaaraha Olympic Gameska la yiraahdo mar kale sanadka 2020 markii la gaaro. guud ahaan saaxiibayaal intaas ayaan kusoo koobaynaa macluumaad ku saabsan wadanka Japan. hase yeeshee saaxiibada nagala socda ee channelkan Saadaalin Online waxaanu markaasi leenahay subscribe dhaha ama like, sidoo kale saaxiibadaada share u dheh si macluumaadkan ay wax badan uga bartaan.